السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كنا maanta wuxuu ka hadli doonaa nursing process ama habka uu shaqeeyo kalkaaliyaha caafimaadku si uu guto waajibaadka saaran qofka bukaanka ah. Shanta hab waxaa loo yaqaan nursing process baa loo yaqaan. Nursing process-ku wuxuu ka kooban yahay shan tallaabo oo kala horeeya. Waxaa loo yaqaanaa 5K component. 5K component-ga waxa ugu horeeya assessment, xog baaris, diagnosis, cudur sheegis, planning, qorsheyn, implementation, qorshe fulin, and evaluation iyo waxa weeye qiimeyn. waxaa loo yaqaanaa Adobe ama loo soo gaabiyaa sidoo kale loo yaqaanaa Adobe oo loo soo gaabiyaa marka xarfaha la isku daro. Waxa ugu horeeya marka nursing process la sameynayo ama qof bukaan loo shaqeynayo waa assessment-ga, xog ururin. qofka bukaanta xog laga soo ururiyo, xogta loo niyo waa data qofka laga ururinayo waxa weeye goorma cudurku ku helay, medical history-giisa laga wareysanaya, xaaladiisa caafimaad, vital signs-ka calaamadaha nolosha laga cabiraya oo dhan, temperature, vital signs, general examination baa loo sameeyaa, heat to assessment, madaxa ilaa waxa weeye lugaha waxa weeye la sameeyaa examination, lifestyle-kan oo laga wareysanaya. sidoo kale marka assessment data la sameynayo oo qofka xogta laga ururinayo waxa loo baahan in la sameeyo critical thinking waxa weeye qofka waxyaaba kaaga muuqda ina waxa weeye cabirtid. sidoo kale for example waxa loo baahan yahay qofka inaad ka wareysatid xagga cunto qaadashadiisa iyo waxa weeye xagga appetite-ka inta ka wareysatid bal rabaa. next step-ka ama talaabada labaad ee ku xigta waxa weeye diagnosis waxa weeye yaqaan cudur sheegis. diagnosis-ka ama cudur sheegistu waxay ku imaan kartaa history-tinka marka aad sameysid in calaamadaha cudurrada aqoonsatid ama in qofka loo sameeyo laboratory test shaybaar loo sameeyo oo xanuunka la soo ogaado. diagnosis waxa weeye cause other problem, waxyaabo badan baa sababi kara. tusaale ahaan anxiety oo kale, walaac qofka inuu hayo oo kale, poor nutrition, nafaqada ku yartahay, ama complication kale ay jiraan xanuunada qofka hayaan. For example, the nursing diagnosis will be impaired mobility related to the stroke. waxaa laga yaabaa qofka oo kale stroke ku jira xaaladiisu ay tahay xaalad aan wax laga qaban karin. diagnosis-ka marka aad sameysid waxa kuugu xigaya waxa loo yaqaan outcome baa kuu soo baxaya. waa dhibaatada dhacday. planning baa marka loo baahan yahay dhibaatada sidii wax looga qaban lahaa oo Adobe adigoo raacaya talaabooyinkii assessment ka bilaabanaya. talaabooyinka assessment-ka marka bilowdaan ugu dambeeya evaluation-ku waa talaabooyin isku xidhan oo loo baahan yahay qofka inuu waxa weeye xaaladiisa wax loogu qabto. short and long range goals for a patient waa in qofka loo diyaariyo waxa weeye qaabkii si guud wax loogu qaban lahaa. for example sariirta oo kale in 3 jeer laga qaado oo waxa weeye laga dejiyo la socodsiiyo, in balaan qorshe loo sameeyo, daawo hadii la siinayo daawadiisa loo diyaariyo, la balaan gareeyo, shaqadii loo qaban lahaa dhamaanteed iyo wixii loogu qabanay in la soo diyaarsado waxa loo yaqaan planning ama qorsheyn baa lahaa. planning-ka badanaa waxay la xiriirtaa assessment-ga iyo marka soo sameysid xog aad soo heshid baa wax balaan gareysan kartaa. last time-ka waana sameysay evaluation qiimeyn shaqada soo qabatay failed or success inay tahay shaqo waxa weeye ku guul dareysatay ama inay tahay shaqo success oo ku guuleysatay inay tahay loo baahan yahay oo evaluation-ka kaaga soo baxaysa. evaluation-ka marka qiimeynta kaaga soo baxda wixii khaldan waa in iska saxdaa. sidoo kale evaluation-ka waxa loo baahan in la sameeyo waxa la follow up oo dabagal loo sameeyo. follow up kama dabagalku wuxuu fiican yahay qofka xaaladiisa in la ogaado maxaa ka khaldan, maxaa uu saxan waxa weeye daawadiisa ku noqday, calaamadaha cudurka ma ka sii yaraanayaan qofka ma soo ka sii badanayaan. nursing process-ka marka waa shanta waa assessment, diagnosis, planning, implementation and evaluation. aad baa ugu mahadsantahay dhegeysigiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.